lix shay oo kor u qaada misna kobciso xasuustaada iyo awoodda xifdintaada iyo kaydinta macluumaadka xagga maskaxda. Kow waxa waaye physical activity-ga ama exercise-ka wax loo yaqaano ama jimicsiga qofba sidoo u yaqaano. Jimicsiga qofka waxaa la dhahaa waxaa ugu yaraan la rabaa maalinta inuu sameeyo 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo intuu dhaxayso. Isbuucina celcelis ahaan waxaa la lahaa inuu sameeyo ugu yaraan ama in ku dhow 150 daqiiqo toddobaadkii ama isbuucii. Marka tan waxay ka caawinaysaa in blood flow-ga ama qulqulka dhiigga ee maskaxda uu sare u kaco, taas oo caawinayso saa ognahay qulqulka dhiigga ama maskaxda hadduu sare u kaco waxaa dhacayo in dhiig fara badan maskaxda uu gaaro, taas oo caawinayso memory-gaada ama systemka maskaxda ee ku shaqada leh xasuusta iyo xifdinta iyo kaydinta macluumaadka markuu dhiig ku filan helo inuu si fiican u shaqeeyo. Marka waa sababta koowaad oo la dhahayo qofka inuu jimicsi sameeyo. Laba waxa waaye stay mentally active wax loo yaqaano oo ah qofka maskaxiyan wax active ka dhigaya inuu mar walba ku dadaalo. oo hadda ayaga tusaalahan ay soo qaateen oo kala fiiriya haddii wadada oo kala gaari aad ku xin jirto wadada si fiican u taqaano waa inaad ka leexataa wadda aadan garanaynin martaa si maskaxda si fiican ugu shaqeyso, maadaama wadada markaa garanaysa ognahay qofka active waaye oo maskaxdiisa way soo jeedaa oo wuu ogyahay meesha uu ku socdo inuu si fiican u garanayn. Marka wuxuu raadinayaa inuu ku soo dhaco ama inuu soo u helay wadada saxda ahayd. Marka anaga laakiin maadaama dad muslimiin aan nahay waxaan dhahaynaa stay mentally active, macnaha waxaa u qaadaynaa quraanka oo kale oo qofka quraanka inuu qaybo oo xifdiyo oo akhriyo oo mar walba ku celceliyo waxay ka saacidaysaa memory-giisa ama xasuustiisa inuu sare u kaco. Saddex waxa waaye waxyaabaha memory-ga ama xasuusta sare u qaadi kara ama xifdinta sare u qaadi kara qofka in bulshada oo dhex galo. Bulshada inaad dhex gasho waxay ka saacidaysaa inuu hoos u dhaco haddii uu kugu imaan lahaa stress ama depression ama niyad-jab ama isku buuq wax la mid ah. Inta badan waxaa la dadka socialka oo bulshada ku dhex jiro inta badan lama kulmaan xanuunadan oo walwalka iyo walbahaarka iyo isku buuqa ama stresska iyo depressionka ama niyad-jabka wax la midka lama kulmaan. Marka tanna waxay ka saacidaysaa maskaxda inay si fiican u shaqeyso. Waxaa la lahaa xanuunadan oo neurosiska la dhaho oo mental illness-ka ah gaar ahaan stresska iyo depressionka iyo wax la midka iyo anxiety iyo wax la midka ah walwalka iyo walbahaarka iyo cabsida iyo isku buuqa iyo maxaa la dhihi jiray niyad-jabka iyo wax la midka ah waxay saameyn ku yeeshaan xasuustaada iyo xifdintaada iyo kaydinta macluumaadkaada maskaxda qaybta memory-ga ayay ku yeeshaan. Marka saas darteed hadduu qofka bulshada dhex galo oo qof bulshaawi ah waxay ka in xasuustiisa ay sare u kacdo iyo xifdintiisa. Qodobka afraad waxa waaye hurdada. haddii qofka habeenkii 6 saac ilaa 8 saac oo hurdo ku filan oo helo ayadana waxay caawinaysaa xasuustaada iyo xifdintaada. haddii hurdada ay yartahay cagsigeeda waa xasuustaada iyo xifdintaada waa yaraanaysaa. Marka ku dadaal mar walbo inaa si fiican hurdo fiican hesho 6 saac ilaa 8 saac xiriir ah hurdo habeenkii. Qodobka shanaad waxa waaye inuu qofku cuno cunto caafimaad leh oo inta badan waxaa la lahaa khudaarta cagaaran iyo miraha iyo fruitska hadda hortiina ku qoran oo sawirada hortiina yaalla oo kale sida cambaha iyo babaayga iyo liinta iyo khudaarta cagaaran si guud iyo miraha sida tufaaxa iyo wax la midka iyo canabka iyo wax la midka ah iyo zabiibka iyo mirahaas iyo wax la midka ah qofku waxay sare u qaadaysaa xasuustiisa iyo xifdintiisa ayaa la dhahaa. Qodobka lixaad qofka waxaa waaye inuu iska manage gareeyo xanuunada chronic conditions hadduu qabo oo loola jeedo dhiig kar hadaa qabto oo kale inaad iska controlsho, sokor hadaa qabto oo kale inaad iska controlsho, waxyaabahaas cholesterol hadaa qabto oo kale. Marka waxyaabaha muddo dheer ku hayo kale oo xanuunadan chronic la dhaho kale haddii aad qabto kale ayagana inaad iska controlsho dhakhtarkaada la xiriirto soo kaaga control. sababtoo waxaa la lahaa mar kasta oo caafimaadkaada aad ku dadaasho waa markasta memory-gaadana xigmad saas dhaysaa jirta ee sare u kacdo. ileen maskax caafimaad qabta jir caafimaad qaba ayaa wax qaybi kara waxna xifdin kara macluumaadna keedin kara. marka inaad fahanteen ayaa rajaynayaa. haddii weli adoo intaan samaysay aad ku sii aragto in xasuustaada ay liidato la xiriir dhakhtarkaada soo ku caawiyo xaaladaha keena. insha allahu tacaala casharkan soo koobaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.